جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan kusoo jirnay duruusideennii shahr ramadaan, weli waxaan ku jirnay 10kii beri ee fadliga badnayd ee bisha ramadaan ugu dambaysa. waxyaabaha ugu fiican ee la sameeyo 10ka beri waxaa ka mid ah al-i'tikaaf. i'tikaafka iyadoo looga jeedo si alle subxaanahu wa tacaala qofka u waafajiyo habeenka barakada badan ee laylatul qadri ee 10 bilood ka fadli badan. haddaba rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waxaa jira waxyaaba uu sheegay oo calaamado ah oo lagu garto habeenka laylatul qadr. qofka muslimkana la doonayo inuu raaraadiyo subaxda habeenkii markii laylatul qadarka uu noqdo calaamado lagu garto subaxdii qoraxda markay soo baxayso kale. xadiis saxiixa oo muslim uu soo saaray xadiidka abi dhar al-ghifaari radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sabixatu laylat alqadri tatlucu shamsu laa shicaaca laha. laylatulqadr subaxdeeda oo habeenkii weeyaan marka lasoo dhaafo subaxdii qoraxda ay soo baxayso, qoraxda waxay soo baxaysaa iyadoo laa shucaaca lahaa, wax iftiina oo weyn oo faafaya aanan lahayn. ka annahaa tastun, waaba saxan oo kale, jafna oo kale weeyaan bay u eg tahayo qoraxdu way weegaaran tahay saxan oo kale, xataa tartafica ilaa kor ay ka noqoto, markaasay ma aragtay shucaac iyo iftiin weyn yeelanaysa. waa calaamadaha lagu garto weeyaan. sidoo kale xadiid kale abu hurayra uu warinayo radia allahu canhu wuxuu leeyahay tadaakarna laylat alqadri cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam. waxaan iska waraysanay oo aan isweydiinay laylatul qadarka iyo calaamadaha lagu garto rasuulkoo nala jooga. rasuulkeena sal allahu alayh wasalam faqaala rasuulka wuxuu yidhi ayukum yadkur xiina طalaca alqamaru wa huwa mithlu shiqi jafna. yaa xasuusanaya ayukum yadkur xiina طalaca alqamaru, markii uu dayuxu soo baxay, wa huwa mithlu shiqi jafnatin, isagoo la mid ah xeero barkeedoo kale. taana waa calaamadaha markaa iyadana lagu garto weeyaan. shiqu jafnaha waxay leeyihiin ashiqu huwa nisf waljifnatu alqasaca, fiihi ishaara ilaa annaha inama takunu fi awaakhir shahr liana alqamara laa yakunu kadalika cinda tuluucihi ila fi awaakhir ashahr. sidoo kale habeenkaana dayaxa wuxuu noqonayaa sida jafnadaas oo kale haafkeedu noqonaya. qaadi ciyaad marka wuxuu leeyahay bisha xilligaas oo kale ma noqoto xeero nuskeeda ilaa bisha markay dhammaanayso mooye. marka waxaa la garan oo laga garanayaa in 10ka beri laylatul qadarkii uu ku jiro. qamarkana sidaas u ekaanayaa, bishana sidaasay u ekaanaysaa. sidoo kale cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma wuxuu yidhi rasuulka sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi laylatul qadr, habeenka laylatul qadarka laylatun samxa, waa habeen fudud weeyaan oo sahal ah, taliqa oo nuuraysa, laa xaara ma kulula walaa baarida mana qaboobo. waa habeen furfuran weeyaan. tusbixu shamsu sabixatahaa, qoraxdu waxay soo baxaysaa oo ay subaxaysanaysaa laylatulqadr subaxdeeda daciifatan xamraa, iyadoo daciifo oo guduudan. fa calaa kulli xaal calaamadahaas oo dhan waa lagu gartaa. shuucac ma laha, sida saxankaoo kale u muuqataa. qamarkana sidoo kale saxan barkiisoo kale wax u eg buu noqonayaa. waa habeen aad iyo aad u fudud, waa habeen degan oo ma aragta daliqoo furfuran oo if iyo waxyaabo badan ay muuqdaan. kulaylna ma aha, qabow zaa'idna ma aha, waa dhexdhexaad. tusbixu shamsu sabixataha daciifa xamraa. calaamadahana waa calaamada rasuulkeena sal allahu alayhi waali wasalam uu tilmaamay. roob sidoo kale inuu da-ayana waa calaamadaha lagu garto way ka mid tahay. oo rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam habeenada ka mid a inuu sujuuday
biyo iyo dhoobo dhexdooda uu ku sujuudayo. marka saxaabadana ay yidhaahdeen waxaan u malaynaynaa habeenkan inay ahayd waa calaamadaha lagu garto. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu na waafajiyo qiyaamu laylat alqadr والدعاء فيها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.